horta dardaaranku mar waliba ilaah baa noo dardaarmay subxaanahu wa tacaala. allah jala jalaaluhu wuxuu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an itaquu llah. taqwada ilaahay in lasoo dardaarmo. itaqi llaha xayثumaa kunt waatbici الsayiئaةa alxasanata tamxuha wakhaaliqi الnaasa bikhuluqin xasan. waxaa ugu horeeyo aan ka maqalna culamadeena iyo dadkii dacwadana soo gaarsiiyey oo dacwadana baray oo ilaahay dartii noogu yeeray waa xadiidka ugu horeeya aan maqalno ahaa itaqi llaha xayثumaa kunt. ilaahay ka cabsi meel kasta aad joogto. waatbici الsayiئaةa alxasanata tamxuhaa. xumaan haddaad samaysidna wanaag ka dabagey way tirtiraysaay. wakhaaliqi الnaasa bikhuluqin xasan. dadkana kula tacaamul akhlaaq wanaagsan oo markaad dhimato ay kugu xasuusan karaan, ay kugu duceyn karaan, lacala wacasaa in ilaahay kugu badbaadiyo. marka dardaaran waa kaasi mar waliba waxaa wey waan haysanaa in lagu camal falo, macnihiis la dhuxun baa noo daran. dardaaran kale aan dardaarma wuxuu yahay inaanu qabsano ilaahay kitaabka subxaanahu wa tacaala. adigu maxaa rabtaa? balse anigu maxaan rabaa? anigu waxaan rabaa nolol macaan inaan noolaado. anigu waxaan rabaa amni amaan inaan ku noolaado. anigu maxaan rabaa caafimaad inaan ku noolaado. markaan dhinto maxaan rabaa inaan jannatu lfirdowsi ilaahay ii diyaariyo, janno diyaarsan inaan u tago. maalinta qiyaama markaan tago albaabka jannada waxaan rabaa in suuratu lbaqara o aali cimraan dadka u shafaacayso aan ka mid noqdo. waa mar waliba tan aan weydiisano waa ilaahay jala jalaaluhu inuu naga dhigo inuu ka dhigo qur'aanka allahuma jcal qur'aana shafiican lana yowma alqiyaama. waa tan ilaahay la weydiiyey subxaanahu wa tacaala. sheekheena sheekh cali suufi calayhi raxmat ullahi raxmatan waasica ducooyinkiis waxaa ka mid ahaa allahuma calimna alqur'aana waascidna bih. ilaahu qur'aankana bar, kuu ku dhuroowo ku nicmaysan ilaahu naga dhig. السعاadة الxaقيiقة hiya اتibاac sunaة النبي صلى الله عليه وسلم iyo ilaahay kitaabkiisa in la akhriso, la qabsado, macnihiisan la dhuuxo. amaan haddaan u baahanahay amaanka rasmiga ah fi اlkitaab fi اlqur'an. amaanka rasmiga waxaan ka heli karaa ilaahay kitaabkiisa. difaac kasta haddaad samayso, waardiye kasta haddaad qaadato, hub kastoo noocyada u culculuso ugu qiimadan haddaad la imaato, dee waxa weeyaan qofka waardiyaha uu ku noqon doono ma ahan malaa'ig, waxaa ku waardiyen doono bini aadam. soo maa bani aadam muxuu dili karaa, muxuu la dagaalami karaa? ishiisa maskiinta waxay aragto. ayib hunaaka acdaa, cadow badanaa jiro oo indhahaysan qabanayn. الsixr wاlcayn wاlxasad wاljin wاshayطaan, intaasi yaa arki kara. marka ilaahgii ku abuuray keliya arkaayo jala jalaaluh. ilaahayna meel cidla mana dhigana waxaa weeyaan xaluu noo sameeyey rab اlcaalamiin. oo markaad akhrisato adkaar aad ka badbaadaysid waxyaabahaas. markaad qur-aanka ilaahay akhrisato ilaahay uu ku siinayo difaac min cindihi jala jalaaluh. qaala allahu tabaaraka wa tacaala وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. waad xasuusatiino nebigu sal اlه عليه وسلم markuu akhrisay suuraةu yaasiin, cadowgii kusoo duulay inay dilaan ugu talagaleen oo dad lasoo diyaariyey, laga soo shaqeeyey, mishinkii ugu weynaa adduunka ka dhacay kii u horeeyey oo nebiga sal اlه عليه وسلم lagu sameeyey, ilaah wuxuu ku badbaadiyey waa ogtihiin bilqur'aan. qur-aanku akhristay calayhi الsalaatu wasalaam, wuuna ku jeesjeesay, markaasuu caro madaxa ugu shubay mid waliba wuuna ka dhaqaaqay. idan xalka ilaahay adduunka markuu abuuray xalka wuu soo dejiyo, qur'aankiisuu noo soo dejiyey, kalaamuhu rabbi tabaaraka wa tacaala. oo maala haddaan soo qaadana suuraة اlbaqara, qofkii suuraة اlbaqara ka caadiyeystay inuu akhristo wuxuu helayaa barako. أصل القرآن كله بركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أخذها بركة. سجوني أهانو أتلمام عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة أخذها بركة، تركها حسرة، ولا تستطيع بها البطل أي السحرة. intaan cadow oo indhahaysan qabanaynin xalkooda aad kaga gaashaaman kartid ma ahan in waxa weeyaan
shaam shooter la imaatid, ma ahan in diyaarado oo waxa weeyaan qomaatiga u kacaadan aad la imaatid, ma ahan in waxa weeyaan yani hubka ugu culus adduunka la imaatid. hubka ugu culus ilaahay uu ku soo dejiyey oo waxyaabahaas indhaha aanan qabanaynin oo ku dhibi karo waqti kasta waxa weeyaan ku yani saameyn kugu yeelan karo, ilaahay wuxuu ku soo dejiyey qur'aan fiihi اlamnu wاlamaan wa fiihi الshifaa, caafimaad, amni, amaan, nicma, iطminaan اlqalbi, xataa qalbiguu ku daweyna qur'aanka. alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub. ii sheeg wax kaloo qalbiga dejiyo. dictoorka ugu sare adduunka hadduu imaado qalbiga walbahar inuu kaa baabi'iyo lagama yaabo. dictoorka ugu sare hadduu imaado hami iyo xusun inuu kaa badbaadiyo lagama yaabo. intaasi gaashaan waxaad ka dhigan kartaa fii kitaabi اllaahi tabaaraka wa tacaala. qur-aanka markaad akhrisid iطminaanaad helaysaa, inshiraax sadrad helaysaa, amni amaanaad dareemaysaa. ilmahaaga haddaad la rabto wanaag iyo khayr qur-aanka ku dul akhrisid ama qur-aanka aada bartid waxaad dareemaysaa ilmihii ilaahay kuu islaaxiyay subxaanaه wa tacaala. qur-aankan ilaahay kugu barakeeyey jala jalaaluh. marka ninkii maanta barakadan ilaahay soo dejiyey u jeedo oo maalin kasta arkaayo ka mashquulayo, ogow waxaad ka mashquushay amaankii rasmiga ahaa, waxaad ka mashquushay caafimaadkii rasmiga ahaa, waxaad ka mashquushay tijaarada barakadeeda. waad shaqaynaysaa, shaqaad ku mashquulsan tahay, laakiin juz haddaad akhrisatid abrak lak min kuli shay. qul bifadli اllahi wbiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. walaalayaal ilaahay qur'aanka hana baro. kuwii ku dhuroowey oo ku qiimoowey oo qur'aanka qabsaday oo macnihiisa dareemay oo ku raaxaystay la noolaaday allah naga dhigo. nasal اllaha dalik. ilmaheena iyo xaasaskeena iyo waxa weeyaan dadkeena dham ilahay waxaan weydiinayna jala jalaaluhu inuu rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka na wada baro, macnihiisa na fahansiiyo, difaac inuu noo yahayna na garadsiiyo rab اlcaalamiin jala jalaaluhu. intaas haddaan garano amni iyo amaan iyo nicma dadka qur'aanka ku dhaqmay oo qur'aanka si fiican u qaatay oo waxa weeyaan qur'aanka ilaahay aaminay u dhowowo xaaladooda weydii say ku nool yihiin, nolol maalmeedkooda weydii, farxadday ku nool yihiin weydii, tatacajab nolosha ay ku nool yihiin iyo waxa weeyaan khayrka ka muuqda iyo deganaanshaha ay qabaan. laga yaabo inay fuqara yihiin oo qada iyo qur'aan casho isku toosan aysan haysanin, laakiin waxaad ka dareemaysaa farxadooda iyo masaajidkay xaadiraan, nuurka ka baxaayo iyo wanaag iyo khayr iyo barwaaqo. waayo nolosha xaqiiqiga ah waxa weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay man camila صaalixا min dakari aw unthaa wahuwa muؤmin falanuxyiyanahu xayaatan طayiba. xayaatan طayiba, xayaatadaas طayiba dadku ku noolaaday waxa weeyaan waxay ahaayeen awaluhum moxamed bn cabdillah alayh الsalaatu wasalaam. saxaabada nolol wanaagsan ku noolaa. haddii dhinaca marka nolosha wanaagsan qaabkan u fahansannahay haddaan axwaashooda aan fiirinina waxaan arkaynaa nebi moxamed oo gaajo la soo kacay oo waxa weeye wax uan raadinayo, abubakar oo baahi la soo kacay oo asana saas oo kale ah, ama nebigoo difaac dhufays qodanayo oo 3 dhagxaan coloosha ku xiran jiray liajli اljuuc. ayib xayaatan طayiba dala sheegaya maxay tahay? waa wax qalbiga dhex degayo oo iطmi'naan min allah ka imaatay ah. aladiina aamanuu wlam ylbisuu iimaanahum bظulmi ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun. nolosha macaan meeshay kaa jirtaa. marka laa maanic adoo taajir ah ama waxa weeyaan malaayiin haysto in ilaahay caabudid, ilaahay ku xirnaatid, qur-aanka akhrisatid, iطmi'naan iyo dhaqaala inaad isku darsatid. dalika fadl اllahi yutii man yashaa. waa tii nabiga u dhihi jira alayh الsalaatu wasalaam markay saxaabada u dacwadana dheheen yaa rasuula اllahi dahaba ahlu اduhuuri biاlujuur. dadkii dhaqaalaha haystaya ujuurtii naga wada qaatay, waxba nooma yaalaan. nabigu markaasu wuxuu faray adkaar fiiriya say ula dhagta ula xis dadkaasi oo kale u gaaraan ajirkaasi. subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila اllah allahu akbar u faray. idan meesha qof kastoo aad kula tartami karto biladkaar bilqur'aan. dadkii marka oo tujaarta ahaa dhaqaalaha haystay way fahmeen haddana inay
sidii ay waxay khayrkaas ka faa'iidaystaan markaas haddana dhahan yaa rasuul allah haddana way nala barteenoo adkaartii ay wadaan dalika fadlullahi yu'tihi man yashaa fadli ilaahay bixiyey anigu ma reebi karu dhaa nabiga calayhi salaatu wassalaam idan marka waa wax laga maseeri waayo qof taajira ilaahay wax siiyey haddana aytaam aabbo u ah qof ilaahay wax siiyey masaakiinta u turaayo u naxariisaayo dalika fadlullahi yu'tihi man yashaa marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala dadku inay ka faa'iidaystaan ilaahay fadligiisa qur'aanka asaasi ah wax kale waa iska imaanayaan dhaqaale ma leedahay ku ilaali qur'aanka caafimaad ma haysataa ku ilaalsa qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala caruur ma ku siiyey ku ilaali qur'aanka ilaahay jala jalaaluhu mansab ma ku siiyey ku ilaalsa qur'aanka wabaaraka allahu fiikum assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu